السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب السوداء هذا دمانتين هدي أي سبتين بليز سبسكرايب كيسارة إن شير قراية إلايك وحن كده هاي وحقنا وربحين كصاب سن محل ده هاي ما ماذا ننكي دلي ما ماذا هو يدي يجبره هذا وكين يلو دلي ننكي دلي يعني دي موضع dad badan oo commentiga dadka qaarkood oo commentiga soo dhahay waxaan waa beensan waxaas waxba kama jiraan wax kasta horta maxaa la dhahayay waxa idin kugu filan cadeyn waxa idin kugu filan gabdhaha marka ay sugayeen baabuurka yani hadallada ay isweydiinayeen ninka magaciisa Haashim lahaa gabdhaha hadalka ugu dambeeyay isweydiinayeen ay dhahayeen hooyaya qaaday iyo waxa qaaday maxaa la dhahay Haashim u imaaday Haashimna waa ninka taksiilaha oo ciidan horeyba u qaadi jiray oo waligood iyo Allahood baqaadi jiray soo marka maxaa la dhahay meesha cadeyn weyn waay raadkaas markii la raacay iyo taargada baabuurka wixii dhan ayaa la soo ogaaday ninkan taksiilaha ah inuu ka dambeeyo falkan oo maxaa la dhahay dad kalena ay ka sii dambeeyaan oo jiro qof uu soo adeegsaday sababtoo ah nin ciidan oo intaas oo sano custom uu ahaa uu qaadi jiray yani inuu iska dilo kulay wuxuu maskaxdiisa ka keenay ma ahan insha Allah cadeymaha kaleetana waxaan rajeynayaa in la soo dhigi doono ninka sawirkiisa meesha ugu jeedaan 40 sano ayaa u qoran sida la sheegay uu sharciga ku qaatay laakiin asaga 40 sano waxa lahayd uu ka yar yahay soo waxa la sheegay in uu san wali uu ka bixin wadanka Kenya sidaas dawladda Kenya ay cadeysay in ay ku guda jiraan raadintiisa ay cadeeyeen ninkan inuu wali wadanka uu joogo laakiin meel lagu qarinooyo oo qof la qarinooyo inuu yahay ayagoo dhahay dawladda Kenya yani ninkan qayb anaga mas'uulka maadaama wadankeena uu falka ka dhacay inaan soo saarno soo maxaa la dhahay ninkan hore ayuu dambiyaal kale u geystayba markii kiiskiisa la geliyay magaciisa iyo wixiisa la geliyay computerka يعني فلال هوري وجست soo baxeen sida warbixinada ay sheegayaan marka aniga horta dadku wararka ku degdega miihi wariyana miihi laakiin warkan aad ayuu ii taabtay waana arin xasaasi ah yani maxallahay reer dhan oo la baabiyay oo waxaan ku dhahay wax mala yani hadana loo baabiyay oo hadana waxaas ay Soomaali yani waxa ay taabtay waxa way maanta dad Soomaali ah inay dhibaatadaas ay geysteen qof kasto muslim ah ay arintaas taabanaysa soo maxaa la dhahay insha Allah wixii kale oo cadeyn ah ninkan hadda yani wali inuu wadanka joogo oo la soo qaban doono oo maxaa la dhahay lagu gudi jiro oo wixii dhan arintii dhan oo arin oo hadda waadax ay noqotay oo meel loo raac la sanaa laakiin meel loo raac waa la helay